maxaad kala socotaa saami qaybsiga guud ee xukuumadda Somaliland sidee loo qaybsadaa awoodaha dawladnimo dhaqaale shaqaale iyo maamul ee Somaliland ma loo siman yahay Somaliland mise jirtaa waqti xaadirkan Somaliland la wada leeyahay macnaha uu xambaarsan yahay ereyga Somaliland la wada leeyahay ayaa ujeedkiisu uu yahay in la helo Somaliland loo siman yahay awood qaybsigeeda shaqada shaqaalaha awoodaha dhaqaalaha mashaariicda xilalka iyo guud ahaanba ka faa'iideysiga wax soo saarka iyo kheyraadka uu dalkani lahaa haddaba barnaamijkan kooban ayaad ka heli kartaa jawaabaha su'aalahaasi wax badanna kaga baran kartaa xaqiiqada dhex taalla Somaliland iyo aafada ku habsatay awood qaybsigii qarankani la wada lahaa maanta ka hor kana dhigtay Somaliland dukaan albaabkiisu uu furan yahay xaafad gaara oo kaliya xaqiiqooyin dhab ah iyo xoga cadeymahooda wata ayaanu halkan idinku soo bandhigaynaa taasi oo qayb ka ah sababaha keentay in iimaanka Somalilandnimadu uu hoos u dhaco labadii sano ee u dambeeyay sida ay toddobaadkii hore shaacisay urur sheegay inay daraasad ku sameeyeen gudaha dalka waana dhitada sahayatay midnimada iyo wadajirkii bulshada Somaliland oo u fool eg mid ay sii wiiqayaan kuwii loo dirsaday daryeelkooda danna aanay ka lahayn haddaba barnaamijkeenani waxa uu diiradda saari doonaa saamiga beeluhu ay ku kala leeyihiin sida wasaaradaha hay-adaha dawliga ah annaga oo mid isu dul taagi doona wasaaradaha dalka iyo sida loo kala badsaday yaa qatan yaase wada qaatay wasaarada qoysas yeesheen kuwa deegaano gaara lagu quudiyo waafada qabjabka ku riday da'yartii dalka ee sababtay inay yaraato lixajecladii barbaartu ay ka lahayd dalkooda hooyo ha u joojin iyo ku jiqsiidu ha inoo joogtee bal aynu eegno jabadkii la wada dhistay xagga uu u jeestay iyo sida loo kala jaxaastay qaybta ugu horeysa ee toddobaadkana waxaan ku soo qaadan doonaa muraayada qaranka laga daawado oo madaxtooyada haddaba madaxtooyadu ma tahay madal kulmisa bari iyo galbeed iyo masraxay wada fuushan yihiin dhammaanba bulshada Somaliland miyaa loo siman yahay dhinaca saamiga mise waa lagu kala sadbursaday toddobaadkan xaqiiqooyin ku saabsan madaxa iyo shaqaalaha madaxtooyada ayaanu barnaamijkan idinku soo bandhigaynaa madaxtooyada Somaliland waxa ay kamid tahay wasaaradaha aan wasiirka la shaacin lahayn balse ay wasaarad jirta oo dhisan waxayna kamid tahay iyadii wasaaradda duulistuba labada wasaaradood oo ismaamula si aan wasiir lahayn madaxweynuhuna uu sida gaarka ah ugu maamusay deegaankiisa madaxtooyada ayaa maamusha dakhliga ugu badan ee dalkani Jamhuuriyadda Somaliland shaqaalaheeduna waxay kamid yihiin kuwa qaata mushaharaadka ugu badan ee dalka ee dawladdu bixiso ugu horeyn labada mas'uul ee madaxtooyada ugu sareeya waa madaxweynaha qarankan iyo agaasimaha madaxtooyada oo labaduba isku xaafad ah balse taasi ma aha arinta xiisaha leh ee aynu eegno saamiga reeruhu ku kala leeyihiin maamulka iyo shaqaalaha madaxtooyada beesha ay ka soo jeedaan madaxweynaha iyo agaasimaha madaxweynuhuba waxa ay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha maamulka lacagta madaxtooyada agaasimaha warbaahinta madaxtooyada agaasimaha xiriirka dadweynaha agaasimaha libka madaxtooyada khasnajiga guud ee madaxtooyada agaasima ku-xigeenka koobaad ee shaqaalaha madaxa xiriirka imaaraadka iyo madaxtooyada xogayaha guud ee madaxtooyada xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha madaxa dib u dhiska madaxtooyooyinka madaxa caafimaadka ciidanka madaxtooyada taliye ku-xigeenka ciidanka madaxtooyada taliyaha gaarka ah ee ilaalada madaxweynaha saddexda darawale madaxweynaha agaasimaha kafeteriyaha madaxweynaha iyo 350 shaqaale hoosaad oo madaxtooyada kamid ah galbeedka burco ayaa iyaguna waxay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha waaxda IT-ga afayeenka madaxtooyada iyo hal wiil oo kamid ah shaqaale hoosaadka madaxtooyada halka gobolka Sool iyaga ay madaxtooyada uga soo xaadiraan agaasimaha xisaabaadka ciidanka madaxa golaha wasiirada iyo hal qof oo kamid ah shaqaale hoosaadka madaxtooyada bariga burco ayaa iyaguna waqti xaadirkan waxa madaxtooyada uga howlgala agaasimaha gaadiidka ku-xigeenka xisaabaadka iyo 17 shaqaale hoosaadka madaxtooyada ah gobolka Awdal waxa iyagana madaxtooyada ka jooga khasnajiga ciidanka madaxa dhismaha yaryar iyo 4 shaqaale hoosaadka madaxtooyada kamid oo ka howlgala xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee madaxtooyada gobolka Baran iyagana waxa ka jooga 2 qof oo shaqaale oo kaliya degmada Axmed Dhagax iyo Balli Gubadle waxay ku leeyihiin madaxa caafimaadka shaqaalaha xogaye ku-xigeenka madaxweynaha iyo 3 shaqaale hoosaad qalqalis ahaan madaxweynaha iyo beeshiisa ayaa waxay madaxtooyada ku leeyihiin 170% madaxa shaqaalaha madaxtooyada halka bariga burcana qalqalis ahaan ay noqonayaan 14% galbeedka burco ayaa iyaguna 2% gobolka Awdal waa 4% gobolka Soolna qalqalis ahaan waa 3% degmada Axmed Dhagax iyo Balli Gubadle guud ahaan waa 5% gobolka Baran ayaa isaguna howlwadeenada uga howlgala madaxtooyadu waxa ay yihiin 1% kaliya
waxaa intaasi dheer mashaariicda ay madaxtooyadu bixiso oo dhammaantoodba kuwo barbaru daaya inta la og yahayna 14 mashruuc oo labadii sanadood ee u dambeeyay madaxtooyadu bixisay waxa qaatay 12 kamid ah madaxweynaha iyo qoyskiisa. mashaariicda la ogaaday ee casabada madaxweynuhu qaadatay isla markaana malaayiinta dollar lagu bixiyay waxa kamid ah mashruuca timirta ciidanka, sawirada madaxweynaha ee xafiisyada la suro iyo qandaraasyada boorarka oo la siiyay Cabdi Yuusuf Aar, madaxa shirkadda Sagal Jeed. soo dejinta shidaalka diyaaradaha waxa koota loogu xiray Mustafa Mujaahid Gacmo Dheere oo qabaynanta curada madaxweyne Muuse Biixi. soo dejinta qalabka ciidanka sida dareyska waxa haysta oo sanad walba keena wiilka madaxweynaha Maxamed Muuse Biixi Cabdi. mashruuca IT-ga oo lagu mideynayo xogaha dawladda lacag badan ay ku kacday waxa qaatay wiilka uu dhalay madaxweynaha walaalkii. dhismaha xarunta kaydka taariikhda qaranka oo laga hirgelinayo khayriyada Hargeysa waxa baadifad loo siiyay dhalinyaro la sheegay inay la soo shaqaysay madaxweynaha xilligii ololaha balse u badan qaraabada madaxweynaha waxana xusid mudan in la sheegay in mashruucaasi la siiyay ciidamada militariga. muuqaalka dhabta ah ee ay leedahay madaxtooyada qaranka looga arrimiyo ayaa ah kan idin muuqda. sawirkan ayaa dhalay in 28 sano kadib uu muran galay in Somaliland la wada leeyahay in kale. muuqaalka noocan ayaa niyad jabiya bulshada reer Somaliland taasoo abuurtay hal ku dhiga ah Somaliland markayga. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa hadiiba muraayadii dalka ay sidan tahay qaabkii ayay noqon karaan wasaaradihii kale ay wasiiradu joogeen. iyagana barnaamijyada soo socda ayaan ku soo qaadan doonaa waxaana inoo xigi doonta wasaaradda maaliyadda Somaliland oo ah wasaaradda ugu dakhliga badan dalkeena. yoolka iyo ujeedka barnaamijkan waa inaynu helno Somaliland la wada leeyahay.